maanta ay taariikhdu tahay 22kii bishii lixaad 2023 kuna sugannahay xarunta wasaaradda howlaha guud waxaan isugu yeernay haddii aad tiim bahda saxaafadda inaan la wadaagno shir jaraa'id oo aad u muhiim ah annagoo gudaynayna waajibaadka shaqo fulinayna awaamirta madaxda qaranka ee ku aadan ilaalinta hantida maguurtada ah taasoo isugu jirta dhul iyo guryaba maadaama ay wasaaradda howlaha guud dib u dhiska guriyeenta ay mas'uul ka tahay dhisidda dayactirka jaangoynta tirakoobka bixinta gacan ku haynta iyo wax ka qabadka dhulka iyo guryaha hantida qaranka ayaa waxa waayadan dambe soo kordhay inta badan aan aragnay inay soo badanayaan in la baabi'iyo ama la minguuriyo hantida maguurtada ah ee dawladdu iska lahayd sidoo kalena uu dhul boob ku socdo dhulka iyo guryaha dawladda ee ahaa hantida qaranka taasina waa mid sababtay in xukuumaddu ay u magacowdo guddi heer wasiir ah guddidaas oo muhiimadda ugu weyn ay ka shaqeynaysa ay tahay tirakoobka iyo soo celinta hantida maguurtada ah aniguna aan ka ahay gudoomiye haddaba waxaan war saxaafadeedkan ku cadeynayaa qodobadan hoos ku xusan kow laga bilaabo maanta waxaan cadaaladda la horgeyn doonaa cid walba oo lagu helo ama ku howlan raadluminta ama samaysata dhugmatiyo been abuur ah oo la isku dayiyo in lagu milkiyo hantida maguurtada ah ee qaranka sida dhulalka iyo guryaha laba aniga oo ka duulaya ilaalinayna sharciyadan kala ah kow wareegta madaxweyne lambar 174 ee soo baxay 18 July 1965 laba sharci lambar 11 ee soo baxay 18 July 1965 saddex sharci lambar 70 ee soo baxay 31 October 1971 afar sharci lambar 37 ee soo baxay 4 June 1975 oo dhammaantood cadeynaya mas'uuliyadda iyo awoodaha wasaaradda howlaha guud u leedahay ilaalinta diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee qaranka ee dhulka iyo guryaha ayaa waxaan faraya inaysan jirin cid bixin karta iibin karta ama kireen karta dhul ama guryo ay dawladdu iska leedahay saddex sidoo kale waxaan digniin adag u dirayaa nootayooyinka kala wareejinta u sameeya dadka boobaya hantida qaranka waxaan idin leeyahay laga bilaabo maanta nootayadii lagu helaa ayadoo kala wareejin ku sameynaysa dhugmantii ay ku caddahay in hantidan asalkeedu ay iska leedahay dawladdu in hantidan asalkeeda ay ahayd hanti dawladeed kadib loo samaystay dhugmantii been abuur ah in tallaabo sharci laga qaadi doono haddii aysan jirin warqad xaqiijin ah oo ay ka helaan wasaaradda howlaha guud